ummadda Soomaaliyeed meel walba joogtaan waxaan idin leeyahay qof kastaaba intay xilliga u tahay duhurnimo wanaagsan haday duhur ku tahay anaga sideenoo kaleeto alxamdulillah roob ayaa maanta noo da'ay jawigu waa fiican yahay inkastoo maaragtay xoogaa yar aan xoogaa maanta yara naxsanahay maanta waxa waaye salaan kadib waxaa rabaa maanta inaan waxyaabo badan idin sheego naftayda maanta iyo aniga iyo shaydaan aan soo kala gaarnay inaan sameeyo wax kale ma aha videoga waxaan rabaa qof walba oo islaam ah ama qof walba oo Soomaali ama qof walba videoyadeeda daawo jira ama qof aan daawo jirin xitaa inuu maaragtay u geysaan iyo waliba dadka youtuberada youtuberada isticmaalaan marka horta maanta saaka markaa soo kacay jadwal ku soo kacay haddaba aydiidu weyna jadwal kale ayaa ku jira codsigaas aan wato maanta inaan waxaan rabaa adinkana ilaahayna igu garab gala adinka ducaa igu duceysayn ilaahay maxaan ku raadayay soo maaragtay igu naxariisto damdaaf la iga dhigo la cafiyo adinkana ilaahay cafiyo waxaan rabaa maanta inaan go'aan ka gaaro waxaan intaas sano ku jiray oo maaragtay aad u xumaay kulleeto ilaahay wuxuu raali ka yahay ma ahayn si kastoo xataa oo dhaho maaragtay qofka fankiisa uu leeyahay ama ibkii fankiisu saas uu yahay wuxuu kulleeto ilaahay raali ka yahay bataata ma aha maanta waxaan rabaa inaan sidii sheego inaan bataatan wixii la dhahayo fan ama ha noqdo fanaannimo aan ku hees aan qaado ama meel aan ka hii assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaan Soomaaliyeed oo salaamay meel walba oo joogtaan hadda inta haween hadda inta maalin hadda inta galab waxaan salaamay waa aniga maslax yare khayray clipka hore daawateen walaasheena khaladan oo fanka iska baxday oo aan dhahday Soomaaliyeed meel walba joogaan meel walba ay joogaan ina clipkayga wada gaarsan oo fanka inaga baxday oo cadeysay walaashay maan qaladan waxaan leenahay ilaahay ha kugu bedelo wax khayr qabto wax khayr qabto ilaahay kugu bedelo dheer abaadina ilaahay ku siiyo waxa waaye wada walba qaldan ninka ku socdo maano una soo dhamaanaysaa wada walba qaldan ugu socdo maano una soo afjarmaysaa wallahi walaashay maan ku farxay marka arkay clipkeeda aan dabtay oo dhaxday fankan ka bixay waan farxay wallahi billahi aan ummad Soomaaliyeed fanaaniinta kulli oo naxaa because meesha nolol soo joogo wala alam ninka maanta nolol bari ma noolo marka waxa leeyahay ummad Soomaaliyeed fanaaniinta kale waxa uu sheegaya saa ayagu fanka ugu baxeen FJ Habib walaalkeena ugu qaalisan oo fanka soo baxay BK ama Beef so wallahi dadkaas waa dad ilaahay maanta waxa waaye waxa maanta adoo nool oo fiyo oo maanta sariir aan saarneen hadaa garto inaa fanka ka baxdo wallahi waa wax jaanis kale maanta ay haysto waaye wanas axanustid oo sariir aa kurtid oo sakaraad aan gaartid fanka waa ka baxirto magaca ilaahay because waxa waaye waa markaas toobada mafur because taa qaysta inta noo sheeg fiyuudahay hada wax walba soo sameysay hada dambi walba gashay marka ilaahay ka cafinaa hada cafiyadiisu walaashay maan qaladan waxa dhahday heesiga oo dadka ugu jiraan ummad Soomaaliyeed oo dhigeysanayaan xaaskil dhigad gareeyaan anina waxaan inta farayaa walaashayna macaan oo iga dalbatay oo ana dhahday ummad Soomaaliyeed meel walba joogaan heesiga inay iska dhigreeyaan aan rabaa so anina waxaan leeyahay walaashayna macaan oo u jeedeen urdaar samaystay so waxaan leenahay walaalahay macaanayo ummad Soomaaliyeed meel walba joogaan gabadhaas oo qaladan hataa dhahday luu yeerin anoo wadada hataa maraayo fanaanadii qaladan ay leeyihiin halido qaladan amso walaasheeda qaladan halido qof banaadka wuxuu dhibsanahay ma la dhaho qof banaadka waxa soo dhibsanahay iga daaya cadaalad waa ana laga daaya marka ummad Soomaaliyeed waxaan leeyahay horta hawaaye kullu daaga sanood qof walba geerido uu dhamin laakiin inta geerida ka hor ina ilaahay xasuustid adduunkan waxa way waa muddo oo lagu noolaanayo qofka maanta nool birta ma noolo marka walaalaal waxaan leeyahay qoftaas gabadhaas oo walaashiina oo maanta inuu astay
oo inaa kelimaheeda iska dhiirigelisan. Dad waxaa jira youtuber oo ay heeseed ugu jiraan, fadlan waxaan idin codsanayaa inaa heeseed iska tuurtaan oo iska dhiirigelisan. Koos qofku wanaaga maantan horta ifka walaal lagu yahay aakhir wax ma isku taro. Qofka youtuberkiisa heesta qaladan ugu jirto oo dhaad walaalayaal waa laga tuuro aan laga tuurin, waxaa dhahda qofkaas waa inaa report ka wada gudbisaan. soo marka walaashiina codsi idin soo bandhigtay waa goor walaashiina inaa codsigiina u yeeshaan u taxkiilsan ayaan rajeynayaa. anina wixii amaantan oo mid Soomaaliyeed oo meeshan waxayaan oo meeshan ku noolahay ila joogaan youtuberahaadan ha ahaadaan hataa meelaha stuudiyaha oo yani stuudiyaha heesaha laga tuurto meelaha orosooyinka lagu duubo kulli insha Allah garab aan ka siin doonaa walaashii qaaladan meelahaasna waan tagi doonaa. gabadhaas Soomaaliyeed fanka waa ka baxday heesaheeda stuudiyaasha laga dhiirigeliye taas garab aan ku siin insha Allah aan ku siinayaa haddii la aameen. soo akhriyay mar walba inaan iskaan qabano qof bani aadamka hanuunka ilaahay qof bani aadamka wadada saxda ku soo hanuuno ilaahay soo hanuuniyo xaluu baahan in la garab qabto walaashay macaan insha Allah waxaan ku rajeynaynaa uud baariya in Ilaahay ku siiyo ninkaan Ilaahay ku maceeyo arsaaq xalaal oo fanaanimada khayr badan in Ilaahay ku sahlo shaqo wanaagsan oo maantan waalidiintaada oo xajka ku goyn kartid adana horumar u gaar kartid in Ilaahay ku sahlo xamiga ku haminaysan Ilaahay inuu ku sahlo ugu rajeynaynaa dilaamaandeen insha Allah qaaladana insha Allah garabkan taaganahay waan ku support gareysanahay maadaama fanka aska daysay marka walaashay macaan insha Allah meel walba umad Soomaaliyeed meel walba joogan insha Allah ku sheegareynayna waan ku farxanay fanka maadaama aska daysay ka baxday. soo insha Allah walaashay macaan wallahi ku farxay marka ay qaaladan fankan ka baxay because aan qof Soomaaliyeed ama qof muslim oo maanta wada qaldan inuu ku dhinto wallahi hal habeen hada ma jecli qofku marka heesiis arko mise ayadoo mise meel oo population isku imaadan malaga meel dheer ma jiro naftaana meel dheer ma jirto adoo heesayso oo meel laasan ay joogto aliya taadina ku imaato ku dhimatay hadda waxa ku dhimatay aakhirana lagu soo saaraa kalaanka wuxuu u dameelay aakhirana lagu soo saaraa hadda la ilaaha illa Allah kugu dhimatay la ilaaha illa Allah lagu soo saaraa yawm qiyaamo. soo marka walaashay macaan xilif aan asdaa qabatay ilaahay garab ku siiyo wada xalaal arsaaq xalaal ganacsi ku farxadid horumar ku gaartaan ku rajeynaynaa walaashay macaan insha Allah horu soco garabkaan taaganahay gabadhan Soomaaliyeed fanka ka baxday fadlan heesaheeda iska daaya.